nabad saaxiibada qiimiga badan oo meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada casharadii tixanaha ahaa ee aynu ku baraneynay luuqadda Ingiriiska. Sideedaba luuqadda Ingiriisku ama luuqaddu wax kale ma ahan waa erayo iyo naxwo la isku geey. Anaguna halkan waxaan idin ballan qaadnay insha Allah in aan idinka dhisi doono in allaale iyo intii danaynaysa barashada luuqadda Ingiriiska, naxwaha Ingiriiska min dhammaad ilaa iyo bilow, iyo sidaas oo kale erayada Ingiriiska iyadoo ay dheeri inoo noqon doonaan casharo kale oo dhextaal ah. sidoo kalena waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda inaynu soo kordhin doono luuqado kale sida luuqadda Carabiga. kusoo dhawaada yaanan hadal idinku daalinay casharka labaad oo aynu ku baranayno present continuous tense oo ah tenniska koowaad ee luuqadda Ingiriiska kana mid ah 12 tennis ee aas-aaska ama saldhigga u ah naxwaha ama grammarka Ingiriiska. Present continuous tense intaan waxaa lagu macnaynayaa present continuous tense marka la yiraahdo tennis waa dhacdo faleed continue socota, present jooga waa dhacdo faleed socota oo haddana jooga, waa dhacdo faleed socda oo haddana jooga. waynu arki doonaa sharaxaadiisa oo faahfaahsan. This lesson casharkan we are going to waxaan doonaynaa present inaan kusoo bandhigno 4 important points, 4 qodob oo muhiim ah, which are they, kuwaas oo kala ah. If the verb ends in e, haddii ficilku uu ku dhamaado e, waxaanu halkan ku baran doonaa qaybtii koowaad ayaan hordhaca tenniska iyo qaabka u shaqeeyo iyo sharaxaad uga soo bixinay. laakiin waxaan ku baran doonaa qaybtan sida ing-ga loogu daro ficilada ama verbabka present continuous marka la joogo. marka 4 qodob ayaan arki doonaa. If the verb haddii ficilku ends in uu ku dhamaado e, haddii ficilku uu e ku dhamaado maxaa la sameyn doonaa? If the verb haddii ficilku ends in uu ku dhamaado ie maxaa la sameyn doonaa? Verbs ficilada half leh one vowel, ficilada halka vowel ama halka shaqal dhexda ku watana sidee loola tacaamuli doonaa? And all other verbs iyo ficilada kale oo dhan. sidiisaba 4taas qodob iyo hal qodob oo kale oo aynu arki doono ayaa tenniskan uu ku shaqeeyaa marka ficilka ama ficilada lagu darayo ing oo ah waxa lagu yaqaan tenniska. waa tahay aynu gudagalno qodobka koowaad oo ah verbs ficilada ends in ku dhamaada e, ficilada e ku dhamaada marka present continuous la joogo lana doonayo in lagu daro ing sidee loola tacaamulayaa? If the verb haddii ficilku ends in uu ku dhamaado e, haddii uu e ku dhamaado remove the e. If the verb haddii ficilku ends in uu ku dhamaado e, remove the e. da marka hore tirtir intaa wax kala sameeyay ka bixi meesha, then kadib add ku dar ing ku dar. tusaale aynu aragnay examples come sidaan ayay markii hore marka waxaad sameynaysaa ka go-ida plus kadibna ku dar ing ku dar maxay noqonaysaa coming. okay ayadoo jumladii ku jirta aynu aragno he is coming now, isagu hadda ayuu imaanayaa. He is coming now, isagu hadda ayuu imaanayaa. okay leave fiiri oo tegida ka go idii ugu dambeysay kadibna ku dar ing leaving ay noqonaysaa. waa tana jumladeeda ku jirta why are you leaving, maxaad u tegaysaa, sababtee u tegaysaa? why are you leaving, why are you leaving, sababtee u tegaysaa, maxaad u tegaysaa? verbs ficilada ends in ku dhamaada ie, kii hore waxa uu ahaa e, ficilada ku dhamaada ida ayaa la tiray kadibna ing ayaa lagu daray. sidaas ayaad ku samaysaa qodobkaas. If the verb haddii ficilku ends in uu ku dhamaado ie, haddii uu ku dhamaado change y,
y ku bedel ida dhan meesha ka saar y ku bedel then kadib add ku dar ing kadib ing ku dar haddii aad aragtid ficil ay ugu dambayso ie marka aad joogto present continuous ida meesha ka saar ku bedel y kadibna ku dar ing examples ka aynu aragno die sidaan ayay marka hore waa dhimasho macnaheedu sidaan ka dhig ida ku bedel y kadibna ing ku dar waxay noqonaysaa dying tusaalaha aynu aragno she is dying of cholera waxay u dhimanaysaa cholera ama daacuun she is dying waxay u dhimanaysaa of cholera ayay u dhimanaysaa ida ayaan meesha ka saarnay kadibna y ayaan ku bedelnay kadibna waxaan kusii darnay ing da caadiga okay lie fiir waa been sheegid id waxaa ku bedeshaa y kadibna ku dar ing waxay noqonaysaa lying you are lying to me been ayaad ii sheegaysaa you are adigu lying to me been ayaad ii sheegaysaa qodobkaas kalena waxa aad ku fahmaysaa oo aad u qaadanaysaa haddii aad aragtid ficil ama verb ku dhamaado marka aad joogto present continuous ida meesha ka saar ku bedel y kadibna ku dar ing ficil kasta oo aad aragtid oo ku dhamaada ida meesha ka saar y ku bedel kadibna ing ku dar sidaas ayuu qodobkaasna kuugu suuro galay oo aad ku fahmaysaa qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa verbs ficilada half leh one vowel ficilada hal vowel ama hal shaqo leh sidee loola dhaqmayaa vowel waa shaqal sida a e o I sidaas oo kale okay if the verb haddii ficilku has uu leeyahay one vowel hal shaqal oo dhexda ku jira double the last letter xarafka ugu dambeeya laba jibaar then kadib add waxaa ku dartaa ing xarafka ugu dambeeya haddii uu b ahaa laba b ka dhig haddii uu t ahaa laba t ka dhig xarafka ugu dambeeya laba jibaar kadibna ing ku dar exampleska aan eegno marka stop sidaan ayaad marka hore joojin kadibna stop b ayaan ku darnay kale maadaama b ugu dambeyso waxa ugu dambeeya xarafka ugu dambeeya ayaa isla asagoo kale ku daraysaa b ayaa ugu dambeysay b kale ayaan ku daraynaa kadibna ing da caadiga ahaa oo tenniska ayaan ku daraynaa example ka fiirina marka asoo jumlad ku jira I am stopping waxaan joojinayaa the car gaariga I am stopping waxaan joojinayaa anigu the car gaariga cut egg hal vowel ama hal shaqal ayaa dhexda ku jira oo ayu kadib shuruuddu waxay ahayd inaan laba jibaarno xarafka ugu dambeeya t ayaa ugu dambeysa t-da ayaan laba jibaarina loo mar soo celinayna cut plus lagu daray t kadibna waxaan kusii daraynaa ing they are cutting waxa ay jarayaan trees geedo they are ayaku cutting waxa ay jarayaan trees geedo he is cutting waxa uu jarayaa a tree geed he is cutting waxa uu jarayaa a tree geed marka sidoo kale haddii aad aragtid marka present continuous aad joogto verb hal vowel dhexda ku wata oo hal xaraf oo shibanaha ugu dambeeya laba jibaar kadibna ku dar ing sidaas ayuu qodobkaasna aan uga baxaynaa sida stop cut iyo kuwo kale oo badan haddiiba aad aragtid ficil hal vowel dhexda ku wato oo hal xaraf oo shibanaha ugu dambeeyo shibanaha dambe laba jibaar kadibna ing ku dar okay all other verbs dhammaan ficilada kale ee intaasi ka soo haray add ing ku dar ficilada ka soo haray ficil
كو waxaan sheegnay kan koowaad hadii uu ku dhamaado ida tir kadibna ku bedel ing ku dar ida tir ing ku dar hadii ficilku uu ku dhamaado uu dhamayso ida tir ing ku dar kii kale waxa uu ahaa hadii uu ku dhamaado ida u bedel y kadibna ing ku dar kii kale waxa uu ahaa hadii ficilku uu leeyahay hal faawul kaas uu dhexda ku jiro hal shibanana uu ka dambeeyo shibanaha dambe laba jibaar sida stop laba b ka dhig cut laba t ka dhig ilaa t u dambaysa kadibna ing ku dar all other verbs ficilada oo kale oo dhan waa intaas ka soo harta saddexdaas xabo ka soo harta add ing all other verbs add ing as they are sida ay yihiin ing ugu dar tusaale ahaan line barashay ahayd ing sida ugu dar I am learning English ayaan baranaya eat cunid ahayd sida ing ugu dar he is eating waxa cunaya breakfast quraac go ayd ahayd sida ing ugu dar we are going to waxaan u soconaa schoolka ayaan u soconaa stay sida ing ugu dar they are staying at home waxay joogayaan guriga hal mar aan dul marna marka afartan qodob ayaan ku sheegay in aad fahamto ayaan rajeynayaa hadii ficilka ay ugu dambayso ida tir kadibna waa ing ku dar ficilkii make ugu dambaysa ida tir making ka dhig come u dambaysa ida tir ing ku dar coming leave waxa u dambaysa oo tegid ah ida tir leaving ka dhig ficil kasta oo ku dhamaada ama ugu dambeeyo marka la joogo present continuous ida tir kadibna ku dar ing qodobka koowaad waa midkaas qodobka labaad hadii ficilku uu ku dhamaado ida ku bedel y kadibna ing ku dar ida ku bedel y kadibna ing ku dar qodobka saddexaad hadii ficilku uu leeyahay hal faawul hal shaqal hadii uu leeyahay oo dhexda ku jira xaraf shibanaana uu ka dambeeyo shibanaha dambe laba jibaar kadibna ku dar ing sida aan ku arkaynay stop b u dambaysa b kale ku dar stopping cut t u dambaysa t kale ku dar cutting dhammaan ficiladii ka soo hara saddexdaas qodob ficiladii ka soo hara sida ay yihiin ing ugu dar ficilada ka soo hara saddexdaas sidooda ing ugu dar intaas ayaan casharkeena maanta ku joojinaynaa tenniskan la yiraahdo present continuous tennis waxaa ka hartay laba qodob oo aad u kooban intiisii badneed waan soo baranay labadaas qodob oo kala ah ficilada aan qaadanin ing iyo qodob kale marka ha u daymo la'aanin inaad la socotid casharada oo haddii aadan hore noogu soo biirin aad nagu soo biirtid saaxiibada kale iyo walaalaha kalena aad la sii wadaagtid si ay uga faa'iideystaan casharadan adiguna waad ku mahadsan tahay la socoshada iyo daawashada casharadeena inta aynu dib isugu soo laaban doono casharkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi